haddaad dhar qaaqaawan xirto ii sheega waxaad ugu tiraan dharkaas ma fiican qaaliladan waa dhihi kartiin laakiin fanaanadii bataata in aad dhahdeen marow waxaad ku duceysataa daqiiqad yar allah ka dhiga waxaad ku duceysataa inuu ilaahay kugu duwo toobada toosan adoo toosan oo dheedada qofkaa wuu xun yahay qofkaas qof xun waay qofkaas ahlunaar ama dhihi kartid allah iga cafi inta dambi aan galay ilaahay baan cafiska weydiisanaya adig idinkama weydiisanaya laakiin ii duceeya inaan filmaan waa idin dhigi karaa filim waa soo jili karaa filim barakaad kulanti waana wanaagsan daawadayaal mugso dunida daafiyada ka joogtaan oo mar kale ay kaliya cusub halkaad iga daawanaysaan oo bartaan youtube-ka ku leenahay hodan fashion oo idin leh soo dhawaada dhammaantiin intaa ka bacdi waxaan kaa codsanayaa dad channelka ku cusub tahay inaad subscribe saartid rugmatid naga mid noqotid kambaleelkana furatid si aad noqoto qofka horeeya daawada aad baad ugu mahadsan tahay intaa kadib waxaan caawaynaa wada qaaliladan oo fankii joojisay gebi ahaantiiba markaan kule fankii way joojisay maaha wax barobagando ama been la sheegayo ama meel lagu soo qoray ama facebook lagu soo qoray ama meel kale lagu shaaciyay laakiin isla ayadii oo hadlaysa ayaan idin hayaa asxaabteeda qaaliga waxaan idin leeyahay wada daawanna klibka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa gabadhiinii oo idin soo salaamaysa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay qof kastaaba intay xilligay u tahay duhurnimo wanaagsan haday duhur ku tahay anaga sideenoo kaleeto alxamdulilah roob ayaa maanta noo da-ay jawigu waa fiican yahay inkastoo maaragta xoogaa yar aan xoogaa maanta yara naxsanahay maanta waxa waaye salaan kadib waxaa rabaa maanta inaan waxyaabo badan idin sheego naftayda maanta iyo aniga iyo shaydaan aan soo kala gaarnay inaan sameeyo wax kale ma aha videoga waxaa rabaa qof walba oo islaam ah ama qof walba oo Soomaali ama qof walba videoyadeyda daawo jira ama qof aan daawo jirin xitaa inuu maaragtay u geysaan iyo waliba dadka youtuberada ah ee youtuberada isticmaalaan marka horta maanta saaka markaa soo kacay jadwal ku soo kacay haddaba aydii duweyna jadwal kale ayaa ku jira codsigaas aan wato maanta inaan waxaan rabaa adinkana ilaahayna igu garab gala adinka ducaa igu duceysayn ilaahay maxaan ku raadayay soo maaragtay igu naxariisto damdaaf la iga dhigo la cafiyo adinkana ilaahay cafiyo waxaan rabaa maanta inaan go-aan ka gaaro waxaa intaas sano ku jiray oo maaragtay aad u xumaay kuleyto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma ahayn si kastoo xataa oo dhaho maaragtay qofka fankiisa iduu leeyahay ama ibkii fankiisu saas uu yahay wuxuu kuleyto ilaahay raali ka yahay bataata ma aha maanta waxaan rabaa inaan sidii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku raadaaye hees damboon qaado inay bataata halkaa iiga egaatay oo aan noqdo adigan i daawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkeeya ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo weliba ka fiican hadday ii suurto gasho insha allah fankeyga hadda kor waa idii sheegay waxaan idin fanka waa ka baxayaa mardhow laakiin maalinba maalin bay ku sii dhiibaysaa maalinba maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu ku leeyahay maya ayaan iska yara joog kadib waxay maya meeshaan yartaad ka shaqaysatay ka shaqayso lacagtaadan iska heesayso iska gurguro kadib waxa waa ayaan markaad joogto iska dhaaf intaas sano aniga fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulilah xilliga ugu dambeeyay oo niyadeyda ay ka soo go'day waliba si cabsi leh uga soo go'da ayay tahay sababaha jirana idin sheego waa idin dhahay fanka waa ka baxaya laakiin waxaan rabay qofku horta nafta kulama tashato nafta tii ahayd kulama tashato maanta yaad joogtaa beriyaa lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada ka soo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay ahayd markaan soo kacay wiil baa soo wacay wiil markuu soo wacay ugu yiri iblaayo mataqaana haa gabar xalay meeshii joogtay meesha aniga ka heesay geeskeyga ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay ana heesay iyadana geeskeyga ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu ugu dhahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxay ila noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku yiri warma gabadha markay meesha xalay ka soo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xagee ku nimatay
gabadhu waa gabar walaasheena, waa gabar dad badan ay yaqaanaan. ilaa hadda aniga beenku idiima sheegayay, gabadha waxaa layidhi jirkeedii waa gogo-ay, ma la arkayo. ilaa hadda anuun aaminsanin, qalbigayga aad buu u cabsanayaa. wuxuu cabsanayaa waxawaaye waa wacay xitaa wiilkii waxaan dhan nambarada iisoo dir, wiil kaleto oo meesheeda imaan jiro dadka keeni jiro tagsiila. ilaa hadda wiilkaas magaciisa bas waa laii sheegaya, laakiin ani muuqiisay inaan garanayo waa garanaysaa lagu dhaha, laakiin magacii maybe dad badan oo ani waxaa jira aan muuqa ka garanayo oo magacooda aanan garanaynin, laakiin gabadhan gabar aan caadi u garanaya ay ahayd. waxaa le horta ilaahay haw naxariisto, adinkana usoo duceeya. ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun. alle waxaan marka hore uga baryayaa inuu jannatul firdawsa inan taageeyo, ehelkii qaraabada ay ka dhimatayna inuu samriyo iimaan saaduqa allah subxaana watacaala ka siiyo. waxa kaloo aan ku boogaadinaya ama aan ku faraxsanahay inay walaasheen qaaliladan kasoo baxday fankii. waxaa jira dad badan oo kale oo fanki ka baxay iyo dad kale weli kusii jira. kolley sida ay kuwani uga baxeen unbay kolley kuwaasna uga soo bixi doonaan insha allah billahi kariim, maadaama unu fanku ahayn wax lagu sii waarayo ama wax lagu sii jirayo waayo badan. in wada ognahayba naftu kulli nafsi daa'iqat al-mawt, naf kastaaba sakaraadka iyo geerida way dhadhamin doontaa, si laakiin waa lagu kala horeeyaa. alle waxaan ugu weydiinaynaa inantaas inuu jannatul firdawsa inuu allah subxaana watacaala uu ku geliya naxariistiisa. alle naxariistiisa ayuunbad janno lagu galaa. dembi kastood gashid, camal kastood samaysatid, alloo kaa raalli ahaada ood naxariistiisa ku gashid mooyaane, si kastoo ood u dadaashid ama aad u shaqaysatid, alle naxariistiisa inaad ku gasho mooyaane wax kale aan ku geli karnaa ma jirto. marka allah subxaana watacaala dhammaanteenba haynaga dhigo kuwii jannatul firdawsa, alle naxariistiisa kuwii ku gala jannatul firdawsa allah subxaana watacaala ka baryaynaa. intaa kadib caala ayaa mahadda iskale kasoo hadeeyey kana soo hanuuniyey fankii ay ku dhex jirtay iyo fasahaadkii. walow naft kastaaba ay leedahay dembi gooniya, annaga iyaga reactionka ka bixinayna heesahaba dembigayga iyaga ruuxooda uu weyn yahay. allah subxaana watacaala hanaga soo hadeeyo. halka ay qaaliladan martayna insha allah ilaah waxaan uga baryayaa fanaaniin badan oo aanan magacyadooda koobi karin inuu iyagana ka saaro fanka. waxaan idin leeyahay asxaabteeda qiimaha qaayaha mudan, klibku dheeraanaya halkaasaan kusoo gabagabeynaya, iga raalli ahaada hadda klibkeedu ku dheeraado. waxaan idin leeyahay waan idin salaamayaa, waad ku mahadsantihiin daawashada daawanaysaan. waxaan idin leeyahay aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.